waqtigeeni waxa baabi'iyay isticmaalka aalada internetka iyo mobilada wuxuu ninkii noqday sida ugu foorara teleefanka qofna asagoon la hadlayn qofna ma doonayo inuu la hadlo caruurtiina sidaas oo kale way mushkiladaas haysata wuxuu noqday mid walba mid goonidiisa u madax bannaan oo asaga iyo teleefankiisu ay isku mashquulsan yihiin mid walba sidaas uu teleefan ugu maran yahay xaaskiina waa kadalika hooyadiina waa kadalika ayaduna dhinacaada u mashquulsan tahay mushkiladaas ayadana waxay dul fadhidaa teleefankeeda halkaas ay ku mashquulsan tahay iyaduna meeshaasna waa meeshay ka bilaamato baaba qoyska iyo caruurtaba qofkii marka waxa uu ku mashquulo noloshiisu waa ciriiri noloshiisu murugu dareemaya farxad baa ka maqan daal iyo rafaad baa haysta markuu internetkaasi ku dhafro sababtu waa maxay laana waxaan ka fogaanay kitaabka ilaahay quraanka akhriskiisii dhikriga ilaahay xuskiisii baan ka fogaanay daal baa dhinac kasta naga qabsaday marka dhamaanteen haddii nala weydiiyo layiraahdo goormaa kugu dambaysa quraanka akhriskiisa wuxuu leeyahay bil ka hor isbuuc ka hor iyo bil ka hor marka la yiraahdo goormaa khadka kugu dambaysay facebooka whatsappka saacad ka hor daqiiqad ka hor hadda waa online markuu qofku shaqadiisa u socdo teleefanku ku mashquulsan yahay internet markuu joogo xafiiska kadalik markuu u socdo xaflad markuu gaarigiisa wato kadalika teleefankaas ku mashquulsan yahay maskax kale ma hayo haddii la su'aalo goormaa kugu dambaysay quraanka wuxuu leeyahay isbuuc ka hor iyo bilo ka hor ay ugu dambaysay waa xaqiiqada nolosheena sida ay u dhigan tahay munaasabadaha kadalika teleefankii baa lagu mashquulsan yahay bal kama marna masaajidda ilaahay aqinka iyo aadaanka inta u dhaxaysa teleefanku ku mashquulsan yahay khudbadii jumcaha la khudbaynaya facebooku ku jira masaajidku dhex fadhiya whatsappku ka sheekaysanaya waxaas badan kabalaha nolosheena waxaa dambiro halaagay oo baabi'iyay waa teleefan iyo internet walaalaya haddaba xalku waa maxay waa inaan ilaahay u noqono ilaahay u toobadkeenna oo ku mashquulnaa taacada ilaahay saana ugu sifoobin aayadan waxay ka hadlayso iyo kuwa ilaahay aayadan ooga warramay أن نقن إلهي أن توبت كأنه فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ميدياهن maalinba wax soo kordhayaan ayaa waqtigii aynu gashan lahayn khayr oo dhanba cunayba waxaad arkaysaa yani waxaa lagu jiraa waqti yar oo ruux uu shaqo jira inta kale waxaa lagu jira internetka lagu jira ruuxi muxuu baadhahayaa waxaad arkaysaa wax yar haddii aan aamusno oo darsigu wax yar istaago nin walba gooniisu mashquulahaya falaa yaa la sheekaysanaya lala hadlahayaa oodan garanayninoo nin walba mashquulkiisa haysta marmarka qaarkood waxaad arkaysaa qoys dhan hooyadii caruurtii odaygii fadhigay wada fadhiyaan laakiin mid walba meel baa laga haystaa isku sheeko ma aha isku shaqo ma aha mid walba qolo kaloo la sheekaysanaya wax kala haysta yani dadka qaarkood waxaad la yaabaysaa siday u galaan subaxdii baa laga yaabaa habeenkii inay ka soo hoydaan maanta dhan yani waxa web u dhiibay program u dhiibay suu u socdo waxa ugu dhex jiro ka soo galbanaya haddaad habeenkii aad xisaabtato war maxaad la soo galbatay waa zero la shay sabaax mid baa 24 saac wuxuu ka shaqeeyaa ciyaaro ya dhalinyarada khaasatan inkastoo odayaal badan isaga gaboobeen laftoodu waxaas ay fiirsadaan wax ka yafayo waayaha iska yiri haddana qaar baa iyaga laftooda halkaa un waxaad arkaysaa maanta dhan ciyaaraha adduunka ka socdo hadhiyo habeenba mutaabacaynaya wuxuu leeyahay muxuu ahay waxaa socota Israa'iilka Afrika waxaa socota Asia waxaa socota Yurub socota finalkii baa iswada balaaya koox baa soo warada baalkii baa la kala qaatay warada maxad faayid ya dhan meeshaas u fiirsana inda diraandir wax uu ka helay ma jiro markaasaa laga yaabaa aafada dadka qaarkood haysatay aqli yaradii sida ilaahay tawfiiqda uga lumiyay waxa laga yaabaa waxa noocaas oo kala ah inuu jihaad iyo hadana dagaal ugu jiro dad buu ku dilay haduu rabo kow ya
Soomaali dhaxliima keen laba dheer oo Soomaali oo mid intuu toori ka galiya halka garabka hoostiisa uu gudaha u galiyay oo khatar galay wadaadu bal labada ruux kala xaq baa leeyahay ninkan xaqiisa sheeg wuxuu leeyahay war wiilka maxaa ku dhacay banooni way wada fiirsanayeen kan qoladu taageeraha u ahaa baa laga reeyay markaasuu ku oriyay markuu ku oriyay intuu toori iska siibay buu ayr yudafsi waladu ka hor ilaaha ku dhaariyay soma ihris ala ma yanfa'uk waqtigan adu kugu socda waa santuuqi la rabay inaad khayrka gashato waa khasnadii la rabay inaad bari waxa ku jira u baxsato way markaad wax ma la yaani noocaas oo midana uu kaaga baxo billahi alayka maxaa doonaysaa marka inaad gaadho waa adduunkana waxaad ku tahay muflis ayd aakharana ayd baatay marka saas daraadeed ihris ala ma yanfa'uk waxa ku anfacaya ku dadaal isweydii shaqadaad haysiyo waxaad ku jirtaay maxaa caayida maxaa ka soo galay nafci adduunyo ma ku jira oo xalaal nafci aakhiro xalaal ma ku jira maxaa ka soo galay